shimbirta ama diyaaradda daroonka Turkigu sidee Ankara awoodeedu u degtay cirka xagee ayay soo martay maxayse maanta haysataa dhowr xaqiiqo oo ay la soo kulantay Ankara waxa ugu weynayd bahdilaad lagu sameeyay iyo hub aan sax ahayn ama feega oo laga iibshay bahdilaadaas waxa ay u rogtay ficil mana guul daraysana waxa ay noqotay quwad weyn oo maanta miiska dhankeedaan cid kala fariisan waa taxane aanu bilownay kana hadlaya sida Ankara ku degtay awoodda cirka iyo haysashada mid ka mid ah diyaaradaha ugu halista badan ee iswada ee droonka loo yaqaano waana barnaamij ay hore u diyaarisay shabakadda Meydaan ee Carbeed sawiro ay qaaday kaamirada diyaaradda aan duuliyaha wadin ma ahan Mareykan ama Faransiis balse waa mid uu sameeyay Turkigu waana nooca Bekhdar TB2 muuqaalku waxa uu si fiican u muujinayaa howlgalkii qaarajintii Kon Uzdon mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu muhiimsan PKK ee gobolka Sanjar dhacana waqooyiga Ciraaq Turkiga ayay Mareykanku ka mamnuuceen inay siiso tiknoolajiyada noocan ah muddo dheer waxay awood u yeelatay inay samaysato nooceeda gaarka ee halista badan iyadoo ka diga rogotay isticmaalaha hubkan halista ah noqotayna sameeye isla markaana iibiyo weyn ah waqtigan sida ay u awoodeen Turkigu inay dunida kula tartamaan samaynta daroonta dagaalka sanad markii xisbiga AK-Party ku guuleystay madaxtinimada Turkiga waxaa lagu diiwaangeliyay taariikhda weerarkii ugu horeeyay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku sameeyay ay ka geysteen Afghanistan ilbiriqsigaasi waxa uu ahaa bilowga haysashada hubka xorta ee daroonka Mareykanka ee samooyinka caalamka haysashadaas oo dhamaanaysa 2015 kadib markii ay dawlado kala gaareen haysashada tiknoolajiyadan ayna ugu horeeyeen Shiinaha iyo Turkiga waa laynaga mamnuucay in laynaga iibiyo aynu samaysana hadaba droonisku waa hub waxtar weyn istiraatiiji iyo isticmaalid ahaanba kharash badanna ma lahan cidda samaysaa waxa ay helaysaa mudnaan gaar ah waxa uu noqonayaa mid ka mid ah dawladaha aad ku tilmaami karto inay khatar badan yihiin hase ahaatee sidee buu Turkigu u noqday khatar dhamahaantii arrinkan waxa uu qaatay xoogaa waqti ah iyo in badan oo daandaasi ah sheekada waxa ay bilaabatay 1975kii xilligaas oo Mareykanku dul saaray xanimaado soo iibsashada hubka Turkiga in yar kadib markii ay weerartay Qubrus isku dhacaasi waxa uu bedelay habkii ay u fakari jireen Turkigu una soo gadan jireen hubka oo ay ka qaadan jireen reer galbeedka waxa bilowday fafaalooyin u jihaysan warshado gudaha iyadoo la asaasay dhowr shirkadood oo hubka difaaca ah waxayna intooda badan xoogga saareen samaynta khasnadaha rasaasta iyo hubka yaryar halka kuwa kale oo ay ka mid tahay shirkadda Turkiga ee samaynta agabyada hawada sare TAI ay sameeyeen warshadaha culus sida gantaalaha jihaysan iyo diyaaradaha daroonku waxa uu ka mid ahaa waxyaabaha uu markii horeba Turkigu naawilayay inkastoo aysan samaysan karin waxa uu soo iibsaday isla jihadii laftirkeedii waxa ay soo gateen Turkigu 6 diyaaradood oo bilaa duuliyaha oo nooca loo yaqaano Gnat 750S ujeedaduna tahay basaasid iyo kormeerid waxa ay hayeen diyaaradahan kuwa ay koobnaayeen adeegyadooda ayna samaynayso basaasid iyo macluumaad soo gudbin kaliya ah Turkigu waxa ay aadeen Tel Aviv iyo Israel si ay uga soo helaan diyaarad aan duuliyaha lahayn oo hubaysan Turkigu waxa ay dalbadeen helista diyaaradda nooca Heron kolkii ugu horeeyana waxa uu yimid 5 sano kadib iyada oo motorada iyo kaamirada la xumeeyay sidaas ayay ku tuhuntay Ankara Tel Aviv waxa ay samaysay inay u celiso diyaaradihii Israel si loo soo hagaajiyo iyaduna waxa ay qaadatay sanado badan kicinta diyaaradahaasi waxa sameyn jiray farsamayaqaano Israa'iili ah oo kaliya taasoo Turkidu walwal ku ahayd ayagoo ka baqaya inay sawirro si toos ah mar horeba ugu dhacaan sirdoonka Israa'iil waxa uu ahaa tartan lala gelayo waqtiga ciidanka dawladdu waxa uu soo dhigayaa qandaraas xukuumadeed oo ah qaabaynta iyo horumarinta diyaarad aan duuliye wadin oo uu dhexdhexaadiye yahay joogeedu wax culus qaadi karta waxaana ku guuleysay shirkadda TAI
bishaarooyinkii ugu horreeyena way yimaadeen markii lagu dhawaaqay soo saaridda inkaac taas oo la yidhi waxay awooddaa inay duusho joog gaaraya 30,000 oo fiit muddo gaaraya 24 saacadood hase ahaatee kicitaankii ugu horreeya waxa ay burburtay 10 daqiiqo kadib habacsanaan ku timid kicinta ayna la socoto adeega kaga yimi soo iibsashada matoorada iyo qalabyo ay u baahan tahay ee ay shirkadda lagu magacaabo Tilert ee Jarmalka iyo Afig International ee Shiinuhu waxaasoo dhami waxay ku riixeen Turkiga inay bilaabaan mashruuca samaynta matoorada gudaha lagu sameeyo dhammaadkii sanadkii 2011 way guulaysatay duulinta inkaac waxayna gashay xoogaa cirka Turkiga sanadkii 2013 balse ma aysan buuxin yadidiiladii Turkiga sababtoo ah waa daroon aan hubaysnayn taasoo ka dhigaysa kaalinteeda howlgal kasta oo ciidanku galo mid ku kooban basaasid oo kaliya weerarkuse waxa uu baahanayaa in la kiciyo diyaaradaha dagaalka waa qaybta koobaad ee warbixinteenna meydaan ay qortay kana hadlaysa sida Turkigu ay daroonka ku samaysteen waana inoo qaybta labaad